Wajaale oo ka mid ah lixda maamul magaalo ee deegaanka Soomaalida uu leeyahay oo magaalo xuduudeed ganacsi ah ayaa samaysay kobcitaan magaalanimo sidoo kalena bulshada ku nool labada dhinac ay ka dhaxeeyaan xiriir iskaashi oo ku salaysan arrimaha nabadgelyada ganacsiga iyo la dagaalanka maandooriyaha loo yaqaan xashiishada. Duqa maamulka magaalada Wajaale oo ku booqanay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay nabadgelyada iyo qorshayaasha horumarineed ee la qabtay 9 bilood ee la soo dhaafay. oo run ahaantii ah magaalo xasiloon degan ah goob nabadgelyo ku taala isla markaasina marinka Itoobiya iyo Soomaaliland laskaga soo gudbana ku taal xaaladeeda ammaan way degan yihiin nabadgelyadeeduna waa mid taamo isla markaasina wada shaqayn institutionada ammaanka ee magaalada ka jira ayaa taala shirar joogta la qabtaa iyo shaqooyin joogta oo ammaanka lagu xaqiijinayo labada magaalo amni laga wada shaqeeyo jirta wadaris wanaag la dhaxlo kaasi waxa noogu suurta galay in isfaham qaran la yeesho isla markaasina amniga maadaama cadowga xagga ma mid yahay in laga wada shaqeeyo bishii marba la shiraa daris wanaaga lagana wada shiraa kolba waxyaalaha soo kordha iyadoo day to day loo wada shiro institutionada isku baxday booliska maalin kasta wax xiriir leeyihiin sirdoonka xiriir leeyihiin maamulada xiriir leeyihiin migrationada xiriir leeyihiin amniga macnaha magaalada Wajaale waxa ay dhamaantii macnaha laga shaqeeyaa isku duubni ilaa heer shacab ka wada shaqeynaa peace positive wixii la lahaa macnaha ka jira dooran kartaa aan wariga lagu xalinayna dadku hay nabad ilaalinayeen marka xagga amnaanka xasiloonahay ilaahayna ay ku wado xaaladdu aankaas weey dhanka shaqooyinkii 9 bilood la qabanayay waxaan imaka gabagabeynay qiimeyntoodii iyadoo xafiis kastaaba qorshihii u yaalay lagu qiimeynayo soo bandhigay xoogana lagu saaray xaaladda adeeg bixinta oo ahmiyad ballaaran oo hadii adeega la hagaajiyo dawladnimadu in hagaajiso sidaa daraadeed waxaan xooga saarnay markaa inaan qodobada xooga ku saarana kamid ahaa dakhli dhalinta magaalada in dakhliga la soo saaro oo meel kasta ay dakhliga hoostaga sidii qorshihii dakhliga loo soo saar lahaa maadaama yoolka koobaad xukuumadda yahay marka labaadna adeeg bixinta dakhli marka la soo saaro in adeegii la hagaajiyo isaga laftiisa adeeg bixinta inay ku salayaan marka adeega la hagaajiyo dakhliga soo baxayo marka labadaas la isku dhafoona waxa loo gudbi karayaa in mashaariicda magaalada wax laga qabto iyadana waxyaalahan xoog ku saarnay bay ka dhahayd ka qaybgalka dadweynaha waxyaalahan xoog saarnay bay ahayd shaqooyinka xafiisyada qabteen waxyaalaha kale xoog saarnay waxa kamid ah green legacy-ga oo ahmiyad ballaaran u leh shaqooyinkii magaalada arrimaha kale xoog saarnay waxa kamid ah caymiska caafimaadka oo isagana yool noo ahaa 9 bilood magaalooyinka inay la daafuro gelayaan kamid ahayn xoogan saarnay maana arrimaha soo qiimeynay bay ahayd warbixinta xooga lagu saarayay waxa kale xooga lagu saarayay shaqooyinkii xilligii shubanku socdeen xafiisyadu sidoo ay dhaqaalahaan uga qayb qaateen iyo shaqaha sidoo uga qayb qaateen iyo ciidaha sidoo uga qayb qaateen iyadana waxyaalaha cabirka noo ahaa ku adkeynay ba kamid ahayd maamulka suuban waxyaalahan xoog ku saaranay baa kamid ah qiimeeyntani guud ahaan waxa ka soo baxay natiijo waxoole oo rubac afraadna loogu gudbayo sidii qorshihii sanadka soo socdana loo diyaarin lahaa waxyaalihii naga baaqday rubac saddexaadna xoog lagu saari lahaa rubacani marka qiimeyntu waxay noogu dhamaatay qaab jawi wanaagsan isla markaasina natiijo fiican ka soo baxday isla markaasina mashaariicii shaqooyinkii hanwadnayna progress fiican laga gaaray in la sii dardargashana kaalinta adeeg bixinta waxyaalahan hoosta ka xariiqnay kamid tahay dadaalka ballaaran inaan ka sameynay tahay shaqooyinka baartiga isagana dhismiis in xoog la saaro oo dadaalada loogu jiro qiimeyntani la soo afgartay kamid ahayd marka shaqooyinkii qiimeynta shaqo ballaaran oo la soo qabtay oo fudayasho mudan baan macnaha sameynay marka afwiista mashaariicaha la eego marka la eego midnimada hogaaminta oo xooga lagu saarayay markastaba ugu muhiimsanahay tahay green legacy-ga oo isagana dadaalada wadnaa yihiin kuwii imika maadaama la daafuray
rubacani shaqooyinka ugu badan inaan qabanahay tahay mashaariicaha maamulka magaalada Wajacsan laga qabtay way balaaran yihiin waana mashaariicaas lahayn weyn muhiim oo adeeg ay xaqtirayaan qorshahagaha magaalada kamid ah oo disixitaan lagu sameeyo shirkadooda isla markaana lagu howlaha guudna ka shaqeyn ayaa laga bilaabay isagana waa la dhameystiray soo bandhigistiisa lagu guday jiraa marka shaqada koobaad aan qabanay waxa kamid ah balaarinta iyo kordhinta xarunta caafimaadka oo maternal qaybta dhalmada hooyooyinka dibadda naga haysatay in qolo lagu kordhiyo meedka isagana adeeg magaalada maadaama magaalo weyn tahay dhismayaasha lagu kordhiyo kamid yahay store xarunta caafimaadka inaan ballaarino ayaan koow ka ahayd dayactirka hoolka magaalada oo saguna u baahnaa habayn iyo hagaajin iyo isagana jiray xarunta maamulka oo dib u dhis iyo dib u habayn ku sameynay maadaama meeshii magaalada laga xukumayay iyaduna finish marasa xafiiska maaliyadda oo dhismayaalan ku kordhinay maadaama adeeg bixinta halaf dhabar wahayd ba kamid ahaa anagoo green legacy xooga saaran isagana waxaan xooga saarnay inaan isna nursery set maadaama magaalada lahaan jirin oo ahmiyad ballaaran u leh dhiraynta magaalada isla markaasina wax badan ka qabanaysa shaqooyinka wadno waxa kale oo jira mashruuc lagu dhisayo maxaan ku lahdaa qurxinta wadada weyn ee magaalada laga shaqeynayo cagaarinta oo 3 sano inaan ku kafargareyno cagaarka magaalada wax muuqdana laga qabto la rabo ayaa isagana jira oo la dhagax dhigay shaqadiisina hay bilaabato geerishii iyo shaqooyinkii meel 60% amaraya isagana waa shaqooyinka sanadka noo qabsoomay waxyaalaha kale ee gashiyada adeegyada xafiisyada iyagana sidoodii bay noogu fuleen wadooyinka oo isagana waxaan ka qabanay 7 km